بسم الله الرحمن الرحيم. صومالي هنولاتو صومالي هنولاتو golaha wasiirada taliyaasha ciidanka qalabka sida xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo howlwadeennada gobolka shaqaalaha rayidka ah ciidamada qalabka sida kooxda heegan kooxda bambeyda bahda saxaafadda cid kasta oo nagala soo qayb gashay mudanayaal iyo marwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qorraxdu aad iyo aad ayay u kulushahay laakiin dhiiradana haysa iyo farxaddeenna runtii qof walba halkan fadhiya waxay la tahay inuusan dareemayn. ilaahay baa mahad iska leh ilaahay baa mahad iska leh oo maanta halkan kulligeen isugu kaan keenay annagoo u dabaaldegeenna konton iyo sagaal guuradii ka soo wareegtay xorriyaddii aan qaadanay ee koonfurta gobollada koonfureed ee qaadatay iyo israaci iyo midowgii gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed. ilaahay baa mahaddaas ka leh inaan kulligeen halkan aan u joogno inaan u dabaaldegno aan xusno maalintan qiimaha badan maalintan taariikhiga ah maalintan qof walba oo Soomaaliyeed aan aaminsanahay inuu qiiraysan yahay. marka ugu horreysa waxaa loo baahan yahay inaan xusno oona xusuusnaanno halgamayaashii iyo halyeyadii noo keenay xorriyadda u soo halgamay dhiiggoodii u soo daadiyey u dhintay dhaqaalahoodii u bixiyey. waxaan idinka codsanayaa qof walba oo halkan jooga inay istaagaan oo aan faataxad u marno inuu ilaahay jannadiisii iyo naxariistiisii siiyo. munaasabaddan maanta aan isugu nimid xaqiiqatan waxay muujinaysaa ummadda Soomaaliyeed shucuurtooda meel kasta ay joogaan iyo jacaylka ay u qabaan dalkooda iyo waddaniyadooda iyo Soomaaliya inay hor u socoto oo horumar gaartay ay tahay dal xaqiiqatan wax walba haysta wax walba u dhan yihiin hadday noqoto dad hadday noqoto khayraad iyo hadday noqoto wax walba. waxaan rabaa halkan inaan ka sheego oo aan xaqiijiyo munaasabaddan iyo munaasabadihii labadii sana la soo dhaafay aan u weynaynayn sababta waxay ahayd inaan xoojinno waddaniyadda inaan xoojinno waddaniyadda inaan xoojinno dawladnimada. maxaa yeelay qof walba oo Soomaali ah kulli waxaan aan ku midownay dawladnimo kulli waxaan ku midownay hal qaran hal dal yaan ku midownay. marka inaan xoojinno maalintaan oo kale oo qof walba oo Soomaaliyeed uu feesteeyo weeye. marka aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay in qof walba meel walba uu joogo Soomaali meel kastay joogto hadday tahay qurbo iyo hadday tahay gudaha inay muujiyeen rabitaankooda iyo shucuurtooda iyo dareenkooda Soomaaliyeed. waddaniyaddu waa waxa ummaddan iyo dalkan isku xiray waana mabda'a keliya ummadda Soomaaliyeed aan isugu keeni karno. maxaa yeelay waxaa naga dhexeeya hal dal ayaan leenahay oo wanaagsan uu ilaahay nagu abuuray oo loo baahan yahay inaan ilaashanno inaan difaacanno sharafkiisa iyo karaamadiisana soo celinno. 30 sano ku dhowaad waa xaqiiq dalka inuu burbur galay waa xaqiiq dadku inay kala tageen waa xaqiiq dadku inay dib ugu noqdeen tuulooyin. waxaa loo baahan yahay inaan beddelno qaabkaan u fakarno. tuulo waa wax yar tuulo waa wax qoys dego laakiin dalka laga bilaabo Looyacaddo ilaa Raas Kambooni adigoo haysta maxaa tuulo kugu ekeeyey tuulo maxaa kugu ekeeyey adigoo dhulka intaas leeg haysta adigoo badda intaas baaxaddeeda leeg haysta waxa kugu ekeeyey
tuulo oo aad tuulo uga jeceshahay dalka runtii waa waxa aan ka shaqaynayno inaan horumarino waddaniyadda iyo waddan jaceylka waddaniyad macnaheeda ma aha inaad ku dhalatay keliya waddaniyad keliya ma aha inaad Soomaali tahay waddaniyadda waxa weeye inay jecel ka hayso inaad diyaar u tahay dalkaaga inaad u dhimato inaad diyaar u tahay dalkaaga inaad difaacato weeye waddaniyadda macnaheedu waxay tahay inaad ilaaliso sharafka dalkaaga sharafka dadkaaga inaad ilaaliso oo ay ku dhibto wax kasta oo foolxumo ah oo qof Soomaali ah laga sheegayo qof kasta waxa waajib ku ah oo Soomaali ah inuu u shaqeeyo sharafka ummadiisa inuu shaqeeyo qof walba oo Soomaali waxa waajib ku ah inuu u dhinto difaaca dalkiisa uusan ogolaanin hadday tahay bad iyo hadday tahay berri inuusan cadow u ogolaanin cid kastana u ogolaanin hadday noqoto hal mitir hadday noqoto kaas weeye waddaniga marka waddaniga aan doonayno oo aan maanta intaasoo qof isugu soo saarnay oo calamadaha kala duwan wata oo quruxda badan waxa weeye inaan carruurteenna birri u diyaarinno intaan iyo in ka badan inaan u diyaarinno carruurteenna inaan u diyaarinno taariikhdooda carruurteenna inaan u diyaarinno inay lahaayeen aabbayaal iyo awoowayaal u soo halgamay oo dhiiggooda u soo daadiyey dalkan isku haynteeda iyo midnimadeeda sidaas darteed waxa aan samaynayno waa waxa aan ka shaqaynayno waxa soo socda waxay ku yeelan karto jiilka Soomaaliyeed ee aan dhalnay waxa kaloo loo baahan yahay inaan xoojinno dowladnimo yaa annagoo dhanna wada deeqda dowladnimo yaana wada deeqda oo aan ka dhex heli karnaa cadaalad aan ka dhex heli karnaa nolol aan kula tartami karnaa caalamka intiisa kale wax ka hooseeya dowladnimo ma aha waxaan horumar ku gaari karno haddaan horumar ku gaari karno wax dowladnimo ka hooseeya iyo qaran iyo dal 30 sano ku gaari lahayn adduunkan ugu horumari lahayn waxaan ognahay meeshaan ka taagannahay adduunka annagoo ah dad wanaagsan annagoo ah dad maskax badan annagoo ah dad firfircoon annagoo ah dad walaalo ah oo aan waxba ku kala qaybsanayn waxbana ku kala duwanayn waad arkaysaan meesha aan ka taagannahay adduunka waxay ahayd inaan ka faa'iidaysanno inaan Soomaali nahay inaan ka faa'iidaysanno dalka aan Ilaahayna siiyey khayraadka wax walba uu leeyahay inaan ka faa'iidaysanno inaan ka faa'iidaysanno waxaan isku nahay inaan ka faa'iidaysanno iyo waxaan wadaagno inaan ka faa'iidaysanno ma aha inaan isku dirno ma aha inaan isku dhibaateenno ma aha dalkeena inaan ku burburino ma aha inaan ku kala qaybsanno ma aha inaan tuulooyin u kala baxno waxaan leenahay dal wanaagsan waxaan leenahay sumcad wanaagsan oo aan soo marnay oo adduunku nagu karaameeyeen nagu xushmeeyeen nagu ixtiraameen waa soo celin karnaa waxaan ku soo celin karnaa midnimo Soomaaliyeed kuma soo celin karno qaybsanaan iyo qabyaalad kuma soo celin karno dawlad wanaag aan rabnay inaan xoojinno waa dawlad wanaag ku dhisan dimuqraadiyad darajadu waa meerto maalin walba qof baa jooga maanta anaa joogay shalay dad waalahana joogay berri dad kale joogi doona waa inaan difaacno waa inaan dooranno madaxweynuhu waa astaan qaran dalkuna waa astaan qaran yaan la kala saarin madaxweyne qoys ah ma jiro madaxweynuhu markuu dhaartay oo doortay ummaddu wuxuu u dhaartay inuu dhaxeeyo ummaddu inuu cadaalad falayo inuu ka fogaanayo wax kasta oo ummadda kala qaybiya madaxweynihiinu waa kaas dawladdiinuna waa taas dawlad ha ka raadinin qabiil dawlad ha ka raadinin qabyaalad dawlad ha ka raadinin kala qaybsanaan dawlad waa tan midaysa ummaddeeda waa dan ummaddeeda isu keenta waa dawlad tan difaacda dadkeeda weeye waxa weeye dawlad wanaag waxyaabahan ka shaqayna weeye dawlad wanaag waa waxa aan caalamka kula tartami karno waa bilaawnay waxaa daliil u ah musuqmaasuq inaan la dagaalno maxaa yeelay musuqmaasuq hadduu noolaado hadduu jiro mushahar lama qaadan karo inaan la dagaalno musuqmaasuq waxaa caddaynaya inaysan hal bilna nagu baaqan mushaharaadka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida laakiin qof walba waa inuu ilaaliyo nidaamka qof walba waa inuu ilaaliyo shaqadu waxay tahay iyo nidaamkeeda inuu ilaaliyo qofka waa inuu shaqeeyo oo uu shaqeeyo ma aha haddaad tahay shaqaale dawladeed ma aha in aad lagu siiyey wax la yidhahda ceyr ama welfare ma aha waxaad ka mudan tahay dadkaad ka mudan tahay waxaad tahay astaan baa tahay waxaa la rabaa inaad subaxdii shaqada soo gasho aroortii wakhtiga loogu talagalay aad ka baxdo siduu ilaahay kugu og yahayna aad si wanaagsan u shaqayso
وكهذا اللي مسق ماسق وعذر كدولة بربرية ووحينا بربريي ووحن الاستاج ويني مسق ماسق والله دقالنا وقت النوق هذا ليس لكن قفوا البوحن وشجعنا إنا إسكيل عليان إنا إسكيل عليان إنتين عيبين إنا إسكيل عليان إنتين لحرين مسق ماسق ووح فورهم ووح هذا الله هنا قالتي وواحد كقاتي قفوا الكاء أو قال لها وحارد كبورنا يا شقوين كيني إن أتكاتان شقوا ناكسن هذا مضى وفلسان ومضى إن الله شقيه وحين تصدر أو دول وناق كمذا إن شرفك يا كرامتي ومضى الصومالي سوء إنه شرفك ومضى يضل كان يقرن كان وحساريه قف والبو موادن صومالية قف كار مسارنا مدحوين كار مسارنا برامن سكار مسارنا وزير هذا كار مسارنا ميديا وحلين دور أي كو إلاليان سمعة صومالية سمعة دالكود كو إلاليان سمعة دولة كو إلاليان ميديا يعيد والبابا أو موادنا مسؤولية داس يا سارن إن أول دسنو دولة حلا دولة شرف له دولة مجا ومدى صومالي سوجيدا إن دسنو إن ومدى نمدينو أو أي مانتا إنه نقطو مالين أن كجوابني إن أي صومالي أي تهاي دل شرف له دل وناكسن دل هروس على أو هروس على هرمات دورية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.